السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran janaalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin kula wadaago xisbigii dimuqraadiga ah oo kala jabay isla markaana qaarkood Republicaankii ay kula heshiiyeen in dowladii dib loo furo. Imise xubnood oo dimuqraadi ah ayaa Republicaanka ku taageertay ama kula heshiiyay in dowladda dib loo furo. Dalabkii xisbiga dimuqraadiga oo weli waxba aysan ka qaban xisbiga Republicaanka ah ayaa la doonayaa in dowladii dib loo furo. Arrintaasi Trump muxuu goordhow qoraal uu soo qoray bartiisa Truth Social-ka uu ku yiri maxay yihiin waxyaabaha lagu heshiiyay ilaa intee ayay dowladdu sii shaqaynaysaa inta aysan mar kale xirmin. Waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa Trump oo haddana goordhow ka soo hadlay lacagtii $2,000 ahayd oo aan horay shalay idinku sheegay muxuu ka yiri yaa la siinayaa waan idinla wadaagayaa iyo Trump uu cafiyay ilaa iyo 77 xubnood cafis u fidiyay oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadkii kala shaqeeyay doorashadii sanadkii 2020 uu Biden uga guuleystay in isku dayayay qareenadiisii in isaga dhinaciisa ay u soo wareejiyaan maadaama ay dhahayeen doorashadaasi waa la musuqmaasuqayna waan idinla wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada anta maalintii 41 ayaa dowladda Mareykanku ay xiran tahay laakiin xalay ayaa wada hadal dheer oo qaar ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga iyo kuwa Republicaanka dhaxmaray waxa la isku afkartay in dowladii dib loo furo iyadoo weli aan waxba laga qaban dalabkii xisbiga dimuqraadiga oo ahaa Obamacare ama Affordable Care Act-ga in la kordhiyo iyadoo wax lacag aysan ku kordhaynin dadka kaarkaasi ama caymiskaasi caafimaadka isticmaala. Haddaba arrintan sidee u dhacday? waxaan ognahay in xisbiga dimuqraadiga ay diidanayeen oo in ka badan 14 jeer ay u codeeyeen sharcigii Republicaanku ay wateen oo la doonayay in dowladda dib loogu furo. Haddaba xubno ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo 7 xubnood ah ayaa waxa ay Republicaanka kula heshiiyeen shuruudahan soo socdo si dowladda dib loogu furo. Xubnaha 7 ah ee dimuqraadiga ah waxa ay kala yihiin ninka waliba labaad ee aqalka sanadka ee dimuqraadiga ah oo la yiraahdo Dick Durbin oo laga soo doorto gobolka Illinois. waxaa ka mid ah Jean Shaheen oo laga soo doorto New Hampshire. waxaa ka mid ah John Fetterman oo isagu horeyba 3 xubnood oo dimuqraadi ah oo markastaba taageersanaa in dowladda la furo ka mid ah waxaana laga soo doortaa Pennsylvania. Catherine Cortez Masto oo Nevada laga soo doorto. Maggie Hassan oo laga soo doorto New Hampshire. Tim Kaine oo Virginia laga soo doorto. Jackie Rosen oo Nevada laga soo doorto iyo halka xubin ee madaxa bannaan laakiin dimuqraadiyiinta la codeeya oo taageersan oo la yiraahdo Angus King oo Maine laga soo doorto. 8daasi xubnood ayaa Republicaanka waxay kula heshiiyeen qodobadan soo socdo si dowladda dib loogu furo isla markaana 40 kale maadaama hadda kuwan 40 xubnood oo dimuqraadiyiin ah ay ka soo horjeesteen in dowladda dib loo furo iyadoo sharcigii Obamacare ama Affordable Care Act-gii aan waxba laga qaban maadaama uu dhacayo dhamaadka sanadkan lacagaha dadku bil kasta ay bixiyaan ay ku kordhayso in arrintaasi aan waxba laga bedelin oo sida ay tahay si ahaato dadkaasina kaarkooda caafimaadka ama caymiskooda caafimaadka ay sii haystaan. haddaba maxaa lagu heshiiyay? waxaa lagu heshiiyay oo la isku afkartay in dowladda la furo isla markaana ay sii shaqayso ilaa iyo 30 bisha January ee koobaad ee sanadka 2026 ee soo socdo. waa qodobka koobaad. qodobka labaadna waxa uu sidoo kale yahay marka dowladda la fangareynayo waxaa jirta wasaaradda beeraha oo iyadoo kaarka food stamp-ka bixiso dadku cuntada ay ku iibsadaan. wasaaradda beeraha iyada waa la fangareynaya inta sanadku uu socdo ilaa iyo September bisha 9aad 30keeda laga gaarayo. marka haddii dowladdu ay mar kale dib u xiranto kaarkaasi cuntada ma istaagi doono sida hadda dhacday oo November 1deedii markii la gaaray gabi ahaanba uu xirmay isla markaana dad fara badan hadda ku dhawaad muddo 10 maalmood aysan haysan wax cunto ay ku iibsadaan. waxaa sidoo kale ka mid ah qodobada lagu heshiiyay in dimuqraadiyiintu inay soo diyaarsadaan iyagu sharci la xiriira Affordable Care Act-gii ama Obamacare-kii isla markaana bisha soo socota loo codeeyo laakiin sida muuqata weli Republicaanku arrintaasi ma taageersano. Trump ayaa aad waxa uga soo horjeeda Obamacare maxaa yeelay waxa uu ka urinayaa magacaasi Obama ayuu ka urinayaa horeyna waa uu soo dayay xitaa markii hore madaxweynaha ahaa 4 sano hore inuu sharcigaasi gabi ahaanba Obamacare meesha uu ka saaro laakiin senatorkii geeriyooday John McCain ayaa ka soo horjeestay. Trump sababta uu Obamacare magacaasi uga urinayo waxay tahay Obamacare horta waxa la ansixiyay oo la meel mariyay sanadkii 2010 bishii March 23keedii
Obama ayaana saxiixay marka dad malaayiin qof ayaa waxay helaan caymis caafimaad oo raqiis oo lacagtiisa aysan aad u sareynin marka Trump wuxuu rabi lahaa inuu qorshe kale oo caafimaad oo isaga magaciisa Trump Care oo kale inuu ku bedelo ilaa iyo haddana 10 sano ayaa ka soo wareegatay ma hayo wax qorshe uu doonayo inuu Obama Care uu ku bedelo isla markaana meesha uu ka saaro marka sidaasi ayuu uga soo horjeedaa waxyaabaha kale oo lagu heshiiyay waxa kamid ah marka dawladda la furayo in dib loo soo celiyo shaqaalihii dawladda federaalka ee shaqada laga ceeriyay isla markaana loo ballan qaaday inaan mar kale shaqada laga ceerinaynin mushaarkoodii muddadii bil ka badan mushaar la'aantii ahaayeenna dib loo siiyo Trump waa kii inaga ayaa kala dooran doona shaqaalaha aan soo celinayno iyo kuwa aan mushaarkoodii dhaafay aan dib u siinayno waxa sidoo kale jirta in qodobadaasi la isku afkartay laakiin dimuqraadiyiinta iyagoo aan helin wixii ay u dagaalamayeen 41 maalmood ayaa gabi ahaanba meesha ay ka baxeen marka sanadku xalay waxay u codeeyeen sharci la yiraahdo procedural vote kaasi oo maadaama sharcigii dib loo qorayo waxna laga bedelay in u suura gelinaya in la meel mariyo sharcigaasi marka toddobaadkan waxa laga yaabaa inay qaadato maadaama aqalka wakiiladu muddo 51 maalmood aysanba Washington imaanin oo aysan fariisanin afayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson shir jaraa'id ayuu saaka qabtay waxaan uu yiri waxaan doonayaa dhammaanba xubnaha aqalka wakiilada inay dib ugu soo laabtaan Washington si sharcigan loogu codeeyo laakiin waxa laga shaki qabaa Republicanku arrintan ma isku raaci doonaan maxaa yeelay Marjorie Taylor Greene oo tiri ilmahiga qaangaarka ayaa Obama Care isticmaala ee arrintan ka soo horjeesatay marka in la ansixin doono oo xubnaha Republicanka ee aqalka wakiilada ay isku raaci doonaan iyo in kala lama ogo hadda sanadka ayaa sharciga meel marinaya kadib aqalka wakiilada ayuu u gudbayaa kadibna madaxweynaha ayuu u gudbayaa si uu u saxiixo marka dimuqraadiyiintu waxyaabihii 40 maalmood ka badan ay ku dagaalamayeen iyaga oo aan helin ayaa haddana ay kala jabeen oo qaar ka mid ah Republicanka ay ku raaceen in dawladda dib loo furo isla markaana dawladdu ay sii shaqeyso haddaba madaxweyne Trump ayaa goordhow bartiisa Truth Socialka qoraalkan ku soo qoray waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxa uu la hadlayaa in shaqaalaha muhiimka ah ee diyaaradaha kala haga ee raboorada Mareykanka marka ay doolayaan iyo marka ay soo deganayaan waxa uu leeyahay dhammaanba air traffic controlada waa inay shaqada ay ku soo laabtaan hadda waxa uu yiri dhammaanba air traffic controlada kuwaasi oo wadaninimo muujiyay isla markaana aan shaqadooda wax time off aan ka qaadanin oo shaqada aan ka tagin intii dimuqraadiyiintan shutdownka iyagu ay sababeen uu socday dimuqraadiyiinta ayuu ku eedeynaya waxa uu yiri waxa la siin doonaa lacag bonus oo $10,000 qof kasta maxaa yeelay danta wadankooda ayay tooda ay ka hormariyeen laakiin waxa uu yiri kuwa aan amarkaasi u hoggaansamin isla markaana shaqada isaga tagay xitaa iyaga uu ogaa marka dawladdu ay furanto in lacagtooda si buuxda loo siin doono waxa uu yiri kuwaasi anigu kuma faraxsani waxa uu yiri kuma dhiiranin in aad wadankaada aad caawiso oo aad ka caawiso dimuqraadiyiinta arrintan fayga ah oo wadankooda ay ku weerarayeen marka wuxuu yiri calaamad negative ayaa ku saaran at least maskaxda ku hay ayuu yiri in arrintaasi la og yahay waxa sidoo kale jirta in uu ku sii daray haddii aad doonayso inaad shaqadan waqtiga dhow mustaqbalka dhow aad isaga tagto fadlan ha ka labalaynin ee sidaas samee ayuu yiri maxaa yeelay shaqadani mararka qaar waxay leedahay inaan lacag lagu siinin isla markaana aad shaqayso kuwaasina si degdeg ah waxaan ugu bedeli doonaa kuwa wadaniyiina kuwaasi oo shaqo wanaagsan u qaban doona wadanka marka wuxuu yiri maamulkii hore lacaga fara badan ayay waxay ku qasaariyeen ayuu yiri in arrintan ay wax ka qabtaan laakiin waxba ma aysan ka qabanin hadda wuxuu leeyahay dhammaanba air traffic controlladii dib ha ugu soo laabtaan shaqadooda si degdeg ah waliba maxaa yeelay wadanka ayaa u baahan Trump waxa uu qoraalkaasi uu soo qoray goor dhaweeto sidoo kale waxaa jirta in arrintii lacagta $2,000 ahayd oo shalay aan ka hadlayay in isla markiiba haddana maanta uu mar kale qoraal ka soo qoray wuxuu yiri dhammaanba lacagtaasi $2,000 waxaa la siin doonaa dadka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa uu dhexdhexaadka yahay ee muwaadiniinta Mareykanka shalay every person ayuu yiri marka qof kasta ma waxa uu siin doonaa lacag $2,000 arrintaas lacag fara badan ayay noqon doontaa mise qoys ayay noqon doontaa waxaana lacagtaasi aan ka helaynaa ayuu yiri canshuuraha taarifka ah ee wadankeena ku soo qulqulaya oo wadamada ajnabiga ah aan ka qaadayno marka waxa uu yiri waxaan sidoo kale bilaabi doonaa inaan iska bixino deynta
qaranka lagu leeyahay oo dowladda Mareykanka lagu leeyahay mar kale Trump lacagtii $2,000 ahayd qoraalkaasi ayuu ka soo qoray marka dimuqraadiyiinta waxa la yiri arintii Obamacare waxa la yiri adinku sharci soo diyaarsada December ayaa loo codeyn doonaa marka sanadka iyo aqalka wakiilada iyo Trump oo diidan Trump waa diidan yahay gabi ahaanba Obamacare in la sii kordhiyo waxa uu leeyahay waa masiibo waa in meesha laga saara marka haddii January 3 la gaaro oo dimuqraadiyiintii mar kale sharcigaasi loo meel mari waayo waxay noqonaysaa dawladdii mar kale inay xiranto waliba marka soo socdo waxaan u maleynayaa muddo dheer inay xirnaan doonto haddii ka hor arintaasi aan heshiis laga gaarin madaxweyne Trump waxa jirta xalay sidoo kale inuu cafis soo saaray uu cafiyay ilaa 77 xubnood oo xubnihii qareenada isaga ugu dhawaa ay kamid yihiin xilligii 2020 markii doorashada looga guuleystay oo Biden uga guuleystay isku dayay in doorashadaasi ay dagaalamaan oo dhahayay waa lagu shubtay waxa kamid ah madaxii shaqaalaha waxa kamid ah Rudy Giuliani waxa kamid ah sidoo kale xubno kale oo iyagu qareenadiisa isla markaana Trump ku caawinayay in doorashadaasi dhinaciisa loo soo wareejiyo marka madaxweynuhu awoodihiisa ay kamid tahay inuu dad cafiyo laakiin dambiyada federaalka oo kaliya ayuu ka cafin doonaa haddii dambiyo heer gobol ay ku socdaan kama cafin karo arintaasna Trump aad ayaa loogu cambaareeyay 77 qof ayaa hal mar xalay cafis waliba aan shuruudo aysan ku xirnayn oo cafis buuxa ah ayuu u fidiyay dhammaanba 77 xubnood aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo